السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا وناكسن داوديال halkan waa janalka xogta dhacdooyinka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xiisaha dagaal ee ka soo cusboonaaday wadanka Shiinaha iyo sidoo kale jasiiradda diriska la ah ee uu sheegto ee Taiwan. wararkii ugu dambeeyay hadaynu eegno saaxiibayaal maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo kuwa Taiwan ayaa hadda maanta ku ciyaarayay badda sare sida bisad iyo jiir sida lagu sheegay warbixin iyadoo Beijing ay soo gabagabaysay 4 maalmood oo dhoolatus military ah oo ay ka waday marinka Taiwan. dhoolatuskan cirka iyo badda ah ayaa la bilaabay si uu uga jawaabo booqasho ay ku tagtay Taiwan afayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka Nancy Pelosi waxaana lagu tijaabiyay gantaalada balaastikada ah oo markii ugu horeysay lagu garaacay caasimadda jasiiraddaasi ee Taipei. Shiinaha oo u arka Taiwan oo iskeed isu maamusha in ay tahay qayb ka mid ah dhulkiisa ayaa sidoo kale jaray xiriirkii isgaarsiinta ee Washington. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa qof xogogaal u ah arrintan ayaa waxa ay sheegtay in ilaa 10 markab oo kuwa markaasi dagaalka ah oo midkiiba ka yimid Shiinaha iyo Taiwan ay ka shiraacdeen meel u dhow marinbiyoodka Taiwan axadan maanta ah iyada oo qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen khadka dhexe kaas oo aan si rasmi ah markaasi u kala saarin labada dhinac. markii ciidamada Shiinuhu ay cadaadiyeen khadka dhinaca Taiwan waxay ku dhawaatay in ay la socdaan oo ay haddii ay suurtagal tahay u diidaan Shiinaha awood in ay ugu gudbaan halkaasi. qofka la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidaas sheegay. labada dhinac waxa ay muujinayaan isxakamayn. qofka ayaa yiri isaga oo ku tilmaamay dhaqdhaqaaqyadan sida bisad iyo jiir dhinac walbana wuxuu isku dayayaa in uu ka gudbo kan kalena uu soo istaagaya oo wuxuu ku qasbayaa meel aad u liidata oo ugu dambeyntii ku noqda dhinaca kale. wasaaradda difaaca ee jasiiradda Taiwan ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in maraakiib badan oo ay leeyihiin militariga Shiinaha iyo sidoo kale diyaarado kuwa aan duuliyaha lahayn ah ay isku soo diyaariyeen weeraro ka dhan ah jasiiradda iyo ciidamadeeda badda. waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay diyaar garoobeen si ay uga digaan 20 diyaaradood oo Shiinaysa sabtidii oo ay ku jiraan 14 ka mid ah kuwa ka soo gudbay khadka dhexe. waxa kale oo ay ogaatay in 14 markab oo Shiinays ahi ay dhaqdhaqaaq ka wadaan agagaarka marinbiyoodka Taiwan. waxay intaasi ku dartay in gantaaladeeda lidka maraakiibta ee fadhigeedu yahay xeebta iyo gantaaladeeda Patriot ee cirka ilaa hawada ay heegan ku jiraan. dhoolatuskan Shiinaha oo udub dhexaad u ah 6 goobood oo ku xeeran jasiiradda Taiwan ee uu Shiinuhu markaasi ku andacoodo inuu isagu leeyahay ayaa bilaabmay Khamiistii toddobaadkii hore waxaana la qorsheeyay in uu socdo ilaa duhurnimadii axadda maanta ah. militariga Shiinaha ayaa sabtidii waxa uu sheegay in dhoolatuskan waqooyi koonfur galbeed iyo bariga Taiwan in diiradda markaasi lagu saarayo weerarada dhulka iyo awoodaha weerarada badda. dhaqdhaqaaqyadani waxay si weyn u kordhinayaan dadaalka Shiinaha uu ku doonayo in uu wax kaga bedelo xaaladda hadda taagan. waa daandaansi iyo mas'uuliyad darro waxayna sare u qaadaysaa khatarta xisaabinta khaldan ayay tiri haweeneyda markaasi afayeenka u ah aqalka cad ee Mareykanka ee Nancy Pelosi. waxay sidoo kale khilaafsan yihiin hadafka yaga dheer ee ilaalinta nabadda iyo xasiloonida guud ahaan marinbiyoodka Taiwan taas oo markaasi ah wax dunidu ay filayso ayaa hadalkeeda si raacisay. Shiinaha ayaa sheegay in xiriirka uu la leeyahay Taiwan uu yahay arrin gudaha ah xaqna uu u leeyahay in uu jasiiradda hoos keeno xukunkiisa xataa haddii xoog loo baahdo. Taiwan ayaa diiday sheegashada Shiinaha iyadoo sheegtay in dadka Taiwan kaliya ay go'aansan karaan mustaqbalkooda. Shiinaha ayaa sidoo kale uga digay Mareykanka inuusan u dhaqmin si degdeg ah isla markaana uusan abuurin dhibaato weyn. isaga oo tix raacaya jawaabta booqashadii Pelosi wargeyska Daily People ee xisbiga shuuciga ah ayaa sheegay in Shiinuhu uu qaatay tallaabooyin wax ku ool ah oo muujinaya in Shiinuhu uu si buuxda markaasi u awoodo inuu ilaaliyo midnimada qaranka iyo ilaalinta go'aaminta madax bannaanida dhuleeda. iyada oo qayb ka ah jawaabta laga bixiyay booqashadii Pelosi Shiinuhu wuxuu sidoo kale joojiyay xiriirkii uu la lahaa
kanaalada kala duwan ee Mareykanka oo ay ku jiraan inta u dhaxaysa amarada masraxa militariga iyo isbedelka cimilada. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Shiinaha ku eedeeyay in uu qaatay tallaabooyin mas'uuliyad darro ah una ka fogaaday in uu markaasi mudnaan siiyo xal nabadeed bedelkii uu adeegsan lahaa xoog. isaga oo ka hadlay booqasho uu ku tagay Philippines, Anthony Blinken wuxuu sheegay in Mareykanka markaasi uu maqlay walaaca xulafada ay ka qabaan waxa uu ugu yeeray falalka halista ah ee Shiinaha, balse Washington ay isku dayday in ay ka fogaato inay sii xumaato xaaladdu. waxa uu sheegay in joojinta Shiinaha ee wada hadallada laba geesoodka ah ee 8 qodob oo muhiimka ah laga soo saaray ay tahay in la qaado tallaabo lagu ciqaabi doono Shiinaha. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa jimcihii ku eedeeyay Blinken in uu faafiyay xog khaldan. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Shiinaha axaddan maanta ah oo ku saabsan in dhoolatusku uu dhamaanayo iyo in kale. Taiwan ayaa sheegtay in aysan awoodin in ay xaqiijiso in Shiinuhu uu joojiyay iyo in kale. booqashada Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ku tagtay jasiiradda iskeed isu maamusha ee Taiwan ayaa ka careysiisay Shiinaha, taas oo keentay in ay gantaalo plastic ah ku tijaabiso caasimadda jasiiraddaasi ee Taipei markii ugu horeysay, iyada oo sidoo kale jartay qayb ka mid ah xiriirkii isgaarsiinta oo ay la lahayd Mareykanka. ugu dambeyntii, Shiinaha ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyo guud ahaanba wada hadal uu Mareykanka kala lahaa dhinacyo badan oo ay ku jiraan kuwa militari iyo isbedelka cimilada kadib markii ay Shiinuhu ka caroodeen booqashadii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ee ku tagtay Taiwan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxay sheegtay in ay sidoo kale joojinayso isweydaarsiga ee Washington la leedahay ee ka hortaga dambiyada xukuumadda iyo sidoo kale ka ganacsiga daroogada, waxaana Washington ay dhammaan tillaabooyinkan ku tilmaantay mas'uuliyad darro. Shiinaha oo ka careysan Pelosi oo noqotay qofkii ugu sarreeyay ee Mareykanka ah oo booqda muddo 25 sannadood ah jasiiradda iskeed isku maamusha oo Beijing u aragto dhulkeeda ayaa Khamiistii bilowday dhoolatus militari oo ay ku sameynayaan badda iyo cirka agagaarka Taiwan. dhoolatuskan militari oo ah kii ugu ballaarnaa ee abid uu Shiinuhu ka sameeyo marinbiyoodka Taiwan ayaa la qorsheeyay in uu socdo ilaa duhurnimadii Axadda. guud ahaan 68 diyaaradood oo militariga Shiinaha ah iyo 13 markab oo ciidamada badda ah ayaa howlgallo ka fuliyay marinbiyoodka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Washington ay marar badan si cad ugu sheegtay Beijing in aanay raadinayn xiisad ka dhalatay booqashadii Pelosi ee Taiwan. ma jirto wax sabab ah oo lagu micnayn karo falcelintan militariga ah ee xad dhaafka ah iyo isku dheelitirnaan la'aan, ayuu Blinken ku sheegay shir jaraa'id isagoo raaciyay hadda waxay qaadeen tallaabooyin halis oo heer cusub ah. Blinken waxa uu carabka ku adkeeyay in Mareykanku aanu qaadi doonin tallaabooyin uu ku kicinayo qalalaase, balse uu sii wadi doono taageerada xulafada gobolka iyo in uu sameeyo marin hawada iyo badda caadiga ah iyada oo loo marayo marinbiyoodka Taiwan. waan duuli doonaa, ku dhoofi doonaa, kana howlgeli doonaa meel kasta oo sharciga caalamiga ahi inoo ogolaado, ayuu yiri Blinken.